Kooyotodobaatanka haweenka shahaadooyinka la guddoonsiiyay ayaa waxay haayeen gabdhihii ku soo baxay barnaamijkii shaqo qaran imtixaankii loo galay ee gobolka Awdal oo muddo 3 bilood la barayay wadaniyada iyo hogaaminta ayay maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay waxbarashadii loogu talagalay haweenkan barnaamijka shaqo qaran ku soo baxay ee waxbarashada dhameystay oo wareysi gaar ah la yeelanay ayaa warantii waxaan wax ka weydiinay sida u arkaan barnaamijkan iyo waxay ka faa'iideen waxaan isku jirnay tababarka muddo 3 bilood waxyaabaha ku qaadanay waxa kamid ahayd horta totally waxyaabahan aadka u faa'iideen aadkana u xiiseeyeen waxa kamid ah constitutionka ashan dawladda u dhisan tahay iyo xaalkeeda iyo waxyaabaha anaga aan rabno inaan ku dabaqno shaqadan aan qabanayno sidoo kale waxaan ka baranay waxyaabo awareness ah oo bulshada sidoo kale la siinayay kuwaas kamid ah HIV/AIDS-ka hepatitis-ka iyo drug abuse-ka waxyaabaha loo yaqaano muddadaas aan ku dhiganay topics aad u fara badan topics-ka mostly waxay khuseeyeen arrimaha dawladda horta wax badan waan ka faa'iiday aniga gaar ahaan oo waxay ugu muhiimsanayd dawladda wax badan kama aqoon soo topics kala qaatay waxay noo saacideen inaan shaqadan hadhow gali doono aan si fiican u sii barano oo sii ogaano soo waxa kamid ah waxyaabahan ku baranay shaqo qaran types of governments-ka iyo qaybaheega sida utilitarian inay tahay sidoo kale agaasimaha barnaamijka shaqo qaran oo uu ka soo qayb galay munaasabadii xidhitaanka oo halkaasi ka hadlay ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay haweenkii iyagu dhameystay waxbarashadii 3 bilood u socotay waxaana uu yidhi barnaamijkan wuxuu ahaa fikirkii madaxweynaha waa imika dhamaynay 3 bilood ee tababarka civic education-ka maxaa ka dambeeyay maxaa ku xiga sidaan marar badan sheegay waxa bilaabi doontaan muddo shaqo qaran ama internship oo kala ah oo qaranka u shaqeynaysaan oo adeeg bixinaysaan waxa kale oo idinku bushaareynayaa laga bilaabo bisha June dawladdu waxay idin qoondeysay in gunnadiinu ay bilaabanto bisha June haddii la yiraahdo Professor Suleymaan Axmed Guleed gudoomiyaha jaamacadda Amuud iyo mas'uuliyiin kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi shaqada qaranka madaxweynaha kowka iyo departmentka maxamed uu muadin hogaaminayo iyo madaxtooyada iyo wasaaradaha kale ku shaqale horaanu idin dardaaray waxaanu idinku dardaaraynaa oo labaad oo mar labaad saddex ilaahay ku xidhnaado gabdhahan shaqo qaran tiradoodu waa 71 shan ka mid ah waa xagga maqalka ayay naafa ka yihiin 66 kale waxay ka soo dhax baxeen 206 gabdhood oo imtixaan la galay ayay ka soo dhax baxeen barnaamijkani wuxuu weyn ayuu tari doonaa isku xidhka waddanka horumarka nabadgelyada fahamka qarannimo oo waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah waa barnaamijka shaqo qaran ana baan u gudbiyo agaasimaha guud ee barnaamijkaas madaxweynaha qaranka iyo cid kasta oo fikirkan wax ku lahay haweenkayga ku soo baxay barnaamijka shaqo qaran ayaa waxay kuwa ka qalajibiyay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Boorama waxaana ay noqonayaan haweenkii ugu horeeyay ee loo carbiyo shaqada qaranka muddo ku siman 28 sano ka hor Maxamed Xasan Ismaaciil Shibere telefishinka Ariel Boorama.